السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسن أصحابتنا قليقة ملول باجوكتان وحتوسو دواتان مقال كاسو أن كاقا هالدي دونو سيديل اسكوكو دياريا بالعصب كولكا أيكو بلانايدو وحا مر والبا أكسونا هاي إن سوق فوركس أي بالوالبوا أي وضطو 10 دنيا لأنا ربو إن قف والبا وأقون أولي هاي وأنا مهم إن أكتهاي بشاسي وحا أتخبانا يديد كهر انت اسا بلان وإنا كو قرشيسان تهي waxyaalaha qodobada ku dagsan sida A B C waxaan isla arki doonaa qodobo dhowr ah oo qof walba oo trader ah anfici doona leedinkii aan isla aragno qodobadaasi waxyaalaha ugu muhiimsan ee la doonayo marka ay bil cusub bilanayso oo qof walba oo trader ah la rabo inuu wax ka fahmo waxa kamid ah waxa laga rabaa waa inaad ogtahay qodobadan soo socda kow inta isan bishan ku bilan ka hor waxyaalaha adiga gaabka aad leedahay oo kaleeto waxyaalaha adiga aad daciifka ku tahay waxyaalaha meelaha adiga aad ka liidatid inaad soo gunaanudid guud ahaan ugu horeyn asxaabaha aan kugu shaqada ahayn gabi ahaan ba iska gaabi asxaab waxa jira adiga gaar ku ah oo kuwaasi aanan shaqo iyo shaqo ku lahayn suuqa forex balse sida kale asxaab ku tihiin asxaabahaasi isku day inaad ka gaabisid hadaadan wada jari karin waayo asxaabtaasi waxay caqabado ku noqon karaan barasocodkaaga waayo ma oga halka adigu aad higsanaysid qodobka labaad ee la rabo oo mar walba inaad ogtahay la doonayo bil cusub marka ku bilanayo waxay tahay qorshaha guud innaha la wadaagin qorshaha guud ku dagsan bishaasi innaha la wadaagin oo mar walba waxa sameeysaa dadku ha arkaan resultigaaga ee qorshahaaga innaha la shargareenin qorshahaaga waxa kamid ah meel inaad higsanaysid halahaas inaan gaaran doonaya bil hebel wax ka qabsan doonaya maalin hebel dabcan qorshaha aad ku dagsanay guud ahaaneed innaha la wadaagay qorshe gaar ah ku ah oo aad ka maarmi kartid waa la wadaagi kartaa hase ahaatee qorshaha guud ee hadafka aad leedahay innaha la wadaagay waa qodobka labaad ee la rabo markay bil walba cusub ku bilanaysa inaad ogtahay qodobka saddexaad meel gaar ah ku tareed garay oo aan sawaxan lahayn position adiga ku gaara xitaa qolkaaga jiifka ah hadii qolkaaga jiifka ah uu yahay meel qol aad weyn oo meel gaar ah aad ku trade garay kartid aad heli kartid sameeyso sariirtaada dhankaas dhigo waxyaalaha miiskaaga adiga ku gaarka ah waxaan ka hadlaynaa waa meesha ugu dambaysa laastiga ah balse hadaad awoodi kartid in meel ku gaara oo xafiis ha noqoto qol kale to gaar ha noqoto aad ku trade garay kartid ku trade garay oo meel gaar ah waa muhiim qofka traderka inuu ku trade gareeyo qodobadanina waxa la doonayaa bil walba cusub marka kolka ay ku bilanayso inaad ka fikirtid qodobka afraad soo diyaar garow ka hor intuusan suuqa furminba waxaad arkaysaa asxaab fara badan oo ku dhahayo waxaan nahnay qof trader ah balse oosan diyaar garow badan ku jirin oosan waxba aysan korka ka saarneen sidaa darteed waxaa lagula wadaagayaa qodobadani qodobka afraad ka mid ah soo diyaar garow ka hor intuusan suuqa furmin tusaale xilliga suuqa laga trade gareeyo ugu muhiimsan waa xilliga London iyo xilliga New York intaysan furmin ka hor hal saac soo gudagal sidoo kale London intaysan furmin ka hor hal saac soo gudagal sidaa darteed si aad wixii halka ka jira indhen aad u samaysid qodobka shanaad oo ah qodob aad iyo aad u muhiim ah qodobkani yeelo qorshaha ganacsi hagaaji qodobka shanaad waa qorshaha ganacsi hagaaji qorshaha ganacsi hagaaji marka lagu leeyahay حويان وأنا أفكر تاسي كان عسلا فكر فكر في عنين وهذا فكر كلي أصلا كحد من الأسئلة تي بي أصلا هانين إن الله هاي هدف سرع تصالح إن هدف كأقول هاي شنطة سنة أساس عطا هل كده هيك سنة ست طبعا كسنة أساس عطا وران 6 سنة أساس عطا كلي أصلا دب كودجن أسأل كمان تا أما تريد كمان تا تكون خسارتي أكون كمان تكجبتي كلي إنه أصلا فكر كأكو إكانن فكر كأجو وإنه هذا biri aniga heerkee ayaan taagnaan karaa hadii aan qorshahayga ganacsi oo xirfadani suuqa forex aan ka dhabay intee position ayaan joogi karaa mar walba hagaaji fikirkaaga ganacsi kaliya kuma xirna suuqa inaad nidaam baratid inaad mar walba aad ka fikirtid wax la yiraahdo trade ka TB ugu dhacay ma SL ugu dhacay now kaliya ku fikir inaad mar walba tahay qof ganacsade ah doonayana inuu hadafkiisa uu ka dhabay sadarteed qorshaha ganacsi hagaaji oo mar walbana sameey inaad dib aad u eegtid wixii ku dagsanaa
inaad ka gaartay qayb iyo inta ku dhimanba. qorshaha ganacsi hagaaji marka lagu leeyahayna waxaa ka mid ah in aadan cidna la trade gareynin oo suuqani forex markaad ku jirtid fikir un kaliya waa la wadaagi kartaa asxaabta hase ahaatee markaad entry qaadanaysid ama aad suuqa galaysid cidna la shar gareen waayo waa kala duwanaan kartaan. qodobkani mar walbana waan ku soo celinaa asxaabta bahda barnaba forex. qodobka lixaad bishii hore ka wacnaa bishii xigta. su'aal hadda waxa gabagaba ah September waxaa la rabaa inaad ka wacnaatid October markay dhalato bisha October iyo bisha September ka hadda gabagaba ah markaas barbar dhigtid. ama tusaale September bishii ka horeysay Agosta September taani haatan aan ku guda jirno gabagabada ah Agosta soo tagtay maxaa farqi u dhaxeeya? sidee u ahaa xaalkaaga trade? xirfadaadu halkay joogtay? meesalka kugu badnaa ma walaaco kugu badnaa ma xaaladaada emotionalkaaga ma dagsanin miya akoon fara badan miyaad gubtay? xaalkaaga sidee u ahaa? ma qof maxaad ahayd todoba qaargeesa maanta meel jooga birina meel kale jooga miyaad ahayd? ogsoonow waxaa muhiim ah mar walba inaad leedahay is xisaabin. qodobkan waa ku jirtaa waa ay soo socotaa inaad mar walba leedahay is xisaabin. bishii hore ka wacnaa bishii xigta. haatan October ayaa nagu soo food leh. October isku day inaad ka wacnaatid September haddii aad arrinkaagu u ahaa mid qaladaadkaaga u fara badnaa at least aad qaladaad trade ku degdegi jirtay trade inta la gaarin aad qaada jirtay ruulada qaarkood aad khilaafi jirtay ka fiicnaaw October oo gabi ahaan waxyaalaha qaladaadkii September ka dhacay halkaas ku soo afmeer. qodobka toddobaad wararka guud ee bishaasi jiro nood garay. guud ahaan bishaasi October kowdeedii ilaa maalintii dhamaanayso intii warar soo baxayo ha ku nood garaysanaado. waa muhiim inaad ogtahay wararka jira maalin walba suuqaas waayo haddaadan ka warheenin waxaad noqonaysaa mid ku dhaxdhaca badweyn. waayo newsyadu suuqa waa ay ka saarayaan akoonadana waa ay ka gubayaan. mar walba isku day in newsyada suuqa ka jira aad ogtahay ka hor intaadan waxba indheendheenba. sadarteed waa muhiim qodobkan toddobaad inaad feejignaatid mar walba. qodobka sideedaad isbuuc leh isla xisaabtan yeelo. isbuuc leh isla xisaabtan yeelo kolkii lagu dhahayo isniin ilaa iyo jimco ayaa suuqa la trade garaya. maalintii jimcada oo aad trade garaysid kadib maalmaha fasaxa ah iyo sabtida iyo axadda waxaad soo qaadataa maalmahaasi inta trade aad qaadatay waxyaalihii ka qaldanaa waxyaalihii aad qaladaadkii aad ku gashay suuqa sida oo xaalkaasi wiigaasi iyo wiigi xiga sida laga filan karo. mar walba isla xisaabtan samee. isla xisaabtanku wuxuu muhiim ku yahay inaad adiga mar walba iska warhaysid waayo suuqani ma lahan qofku hagaya ma lahan qof maanta oo idin ku daba socda ama ha noqdo maamule ama ha noqdo qof kormeeraha ahaado adi unba inta isku wada ah. marka inaad yeelato isbuucle isla xisaabtan aad ay muhiim u tahay. qodobka sagaalaad oo ah qodob asna aad u muhiim ah bil walba isbuuc ugu horeeya feejignaaw. bil walba isbuuc ugu horeeya feejignaaw waxa weeyaan bil walba isbuuc walba u horeeya waxaa jira warar aad waaweyn. wararkaasi aad ka waaweyn oo ku golaafsan karaa hadaadan dib aadan ugu dagin. mar walbana suuqu markuu warar ka jiro labada dhinac waa u roon yahay. suuqa haduusan war jirin maalinta suuqa ma lahan wax dhaqaaq aad u weyn. suuqu markuu warar waaweyn ka jiro aad ayuu fursadaha u badan tahay aad ayuu riskigan u badan yahay. sadarteed bil walba isbuuc ugu horeeya xitaa hadaad trade qaadanaysid trade aad ogtahay oo trade macnihiisu waxaan ula jeednaa oo riskiga ay qatartaada adiga mar walba ka fikiraya qaado. mar walbana ogsoonow in isbuuc walba uu horaantiisa bisha ay tahay isla meeraysi isbuuc xiga oo suuqa isfurfura. qodobka 10aad oo ah qodobka intaan oo dhan ugu muhiimsan journal la'aan ha trade galeen oo trade ha qaadan. journal la'aan trade marnaba ha qaadan. suuqa waad soo gashay waan indhaysay newsyada waad ogaatay guud ahaan wixii dhan waa soo wada qabatay. haatan halkani waa meesha kaliya ee xabada laga riday. journal la'aan trade galeen marka lagu leeyahay waxa weeyaan trade aad qaadanaysaa trade-kaasi adigoo og wax walbo kaaga baxaya oo trade-kan haduu ku hareer maro SL haduu kaaga dhaco TB haduu kaaga dhaco position kaaga gashay wixii trade-ka maalintaad qaadanaysid guud ahaan wax walba ku diyaarsan nood garay. journalka inta badan kaliya laguma qoro trade-ka qaadanaysid maalinta soo gashay. tusaale maalinta laada soo gashay
trade ayaad New York qaadanaysay ama London aad qaadanaysay labada xilli midkood example London ayaad qaadanaysay London oo kale ayaad trade qaadanaysay maalintaasi waxaad nodgareynaysaa wax walba markaad furtay laptopkaaga dalad shaashadaada mobilkaaga bugnodkaaga guud ahaan waxaad qabatay ayaad nodgareynaysaa ilaa maalinta intuu suuqa aad kaga jirtay asxaabta baada dheer Bafegas gunti iyo gunaanidkii waxaan idin leenahay meel walba joogtaan waqti qurux badan baad haysataan fursad baad haysataan waqti ma idinka tagin suuqani forex cid kale kama saraydo kaliya waxa weeyaan waa loo soo kala horeeyay mooyaane yaanan isdhihin in suuqani dhagax ma ahan buurana ma ahan waa uu fudud yahay qof walbana waa uu baran karaa kaliya adiga iyo dadaalkaaga ay kugu xiran tahay gunti gunaanadkii gabagabadii asxaabta baada Bafegas meel walba joogtaan waxaan idin leenahay guuleysta salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh